xaaladda gobolka Sanaag halista ayay daaqaysaa waxa cirka ku laala nabadii ciidamada Soomaaliland waxay madaafiic ku garaacayaan buuraleyda Ceerigaabo inta la hubo 7 qof oo xoolo dhaqataa iyo xoolahoodii ayaa la laayahay meel ay ka baxeen kuwaas oo ay ku habsadeen duleedka karinka madaafiicda xukuumadda ku garaacayso gudaha magaalada Ceerigaabo waxaa 8 subaxnimo ay gashay jawi kale waxaa la xidhay 12 duhurnimo suuqyada khudaarta hilibka iyo goobaha dadweynuhu ku kulmi jireen kaarayaal habeen hore magaalada lagu soo galiyay baabuurta isjiidka ayaa magaalada gudaha u soo galay nabadda Ceerigaabo shimbirka ka duulay oo fiinta ka dhex dhawaaqaysa intani waa taase maxaa dhacay dhanka kale xoogaga hubaysan ee jabhadda dulmidiid waxay habeennimadii xalay guura bahalayn iyo gudoodii habeennimo kaga soo bixeen fadhiisinkoodii hore ee buuraleyda waqooyiga magaalada Ceerigaabo ee Xamaas xilli 8 gaadiidka gaashaamane ay gaadh ka hayeen waxay muddo 6 maalmood ah ku banaysteen dariiqii qodxaha lahaa ee isku xuli jiray buuraha Xamaas iyo Daal isla xalay waxay qabsadeen magaalo xeebeedda istiraatiijiga ah ee Maydh xeradii ciidamada ilaalada xeebaha iyo madaafiicdu tiile isla xalay weeyaan waxay gooyeen dariiqii hartiyimi ee Maydh ka soo gali jiray dhanka bariga isla dariiqa buurta macajaleenka xeebta xiis iyo Maydh u dhaxeeya ee ka yimaada dhanka xeebta ayay isagana dumiyeen oo miinooyin lagu xidhay gabi ahaanba waxay la wareegeen magaalo xeebeedda Maydh dabadeed maxaa dhacay xoogaga jabhaddu waxay kaloo fadhiisinkooda koowaad ka dhigteen duulada karinta oo Ceerigaabo dhanka xeebta kaga beegan una jirta 13 kiiloomitir oo kaliya halkani waa halka la isku mutay isku day ay sameeyeen inay buurta sinteeda ku gaadhaan ma uu dhicin waxayna iska caabin adag kala kulmeen jabhadda iyo xoogaga hubaysan ee halkaasi fadhiisinka ka dhigtay gaadhigii abaanduulaha ciidamada Soomaaliland waxa laga tuuray laagaga 6 askari ayaa ciidamada kaga dhintay weerarkii hore 12 kalena waa ay kaga dhaawacmeen meydadka 6 ahna waxa la keenay dhaawaca isbitaalka magaalada Ceerigaabo lama oga gaadhiga abaanduulaha ciidamada Soomaaliland ee xoogaga jabhaddu laaga ka tuureen inuu la socday abaanduulihii iyo in kale arrinka halista leh ayaa isna shacabka Ceerigaabo iyo xoogaga jabhadda dulmidiid inay isku si dawladdu dagaalka ugu qaaday kolka laga eego xoolo dhaqatada iyo xoolahoodiiba madaafiicdu sababsaday magaalooyinka Badha Burco iyo Laascaanood ayaa iyagana laga dareemayaa saameynta ay ku yeelatay dagaalka dhiig bixiisu haatan bilaabmay haddaba balaan dib idinku celiyay xoogaga jabhadda maxaa gacantooda ku jira waxaa ku jira dhulxeebeedkii baaxadda lahaa ee gobolka Sanaag waxaa gacanta ugu jira saldhiggii labaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee Maydh oo gabi ahaanba ciidankii iyo hubkii iyo gaadiidkiiba ay toos ula wareegtay jabhaddu waxaa xidhan wadadii xeebta oo la dumiyay buurtii macajaleenka xiis iyo Maydh isku xidhaysay waxaa go'an dariiqii hartiyimi على كل حال أو كديجان مايد يحبيه سناك عيد فود مجلين كرتو طبعا ولاقي هالكطريق جلي تشري ووضدي أوضن كاهي وهالبوله Ceerigaabo يحبها سناك سكحليه وجد كي مدوبة إيانا والله مقالان مانت جبهة قعنت هذا يكوتشرتا وحقتك كوتشرا شرال العارة طلي ما مغليسا bal waxaad noo xaqiijisaa xaalkiina guud iyo bal wararka sheegaya in gacantiina ay ku jirto ama gacanta jabhadda dulmidiid ay ku jirto magaalo xeebeedda Maydh ilaa macajaleenka xiis wadada hartiyimi sidoo kale wadada istiraatiijiga iyo buuraleyda tabca bismillahir rahmanir rahim jabhadda dulmidiid waxaan maanta dagaal ku qabtay buuraha tabca Maydh Badharboge inta way weyday aragid kaasoo ahaa mid kiistayaashii ka haray jabhaddu waxaa maanta waxay gacanta ku dhigtay wadada xiis iyo Maydh socda
إلا الناس بني ما يجي waa tahay taliye waxaad noo xaqiijisay gacanta idinka ku haya wadada laga soo galo xeebta ee ka timaada Berbera ridda laga soo galo xiis ee Macaleenka ilaa iyo wadada Hartiimi iyo wadada Tabca saddexda wado gacantiina ay ku jirtaa ma leedahay لا، aad baad u mahadsantahay